midnimada dalka mugdi bay gasho labadii mas-uul maraday murmeen maantoo kalena madaxaana culus midnimada dalka mugdi bay gasho labadii mas-uul maraday murmeen maantoo kalena madaxaana culus. Soomaaliya waxaa isweydiin mudan goormaa nidaamka dowladnimada sharciga dowladnimada sida ay ku shaqeyso kala dambeynta ay leedahay goormaan baran doonaa goormaa isdhinacyaaca iyo isla gacmeynta aan iska dayn doonaa siiba dadka xilalka hayo meelaha ay kala leeyihiin xilalka dastuurka meesha ay igu qorteen nidaamka ay u maraan kulli goormaa lagu dhaqmi doonaa goormaa lagu wada socon doonaa maanta barnaamijka talo iyo tusaalo wuxuu ku socdaa dadka xilalka hayo iyo shacabka intaba insha Allah kusoo dhawaada. Bismillaah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa Cafiifay mar kale janalkeena Cafiifa Janal kusoo dhawaada dhammaantiin walaaladey meel walbo aad joogtaan. Jimco mubaarak jimco kariim ayaa idin leeyahay. Ilaahay maanta jimcada fadligeeda iyo khayrkeeda ha noo waafajiyo dhammaanteen meel walbo aan joogno guud ahaan ummadda islaamka gaar ahaan ummadeena Soomaaliyeed. Ilaahay ha ka dhigo dad wanaagga iyo khayrka ka shaqeeyo. Ilaahayna dalkeena iyo dadkeena nabad ha nooga dhigo. Maanta barnaamijka talo iyo tusaale waxaan kusoo qaadanayaa xaaladda Soomaaliya meesha ay marayso iyo sida hadda ay wax yihiin iyo sida ay aniga ila tahay maxay ahayd shacabkii hadday noqon laheeday waxaa loo qaatay qof walba dhinacu u falanqeeyay qofba sidii asaga la tahay sida uu markaas asaga jecel yahay oo asaga markaas u fasirtay intii maxay ahayd qabiil u macnaysatay iyo intii wadaninimo u macnaysatay qolo walba dhinac ay uga hadashay u falanqeysay marka aniga maanta intii fikradeyda ah inta aragtideyda ah intaas anigana aan idinku soo gudbinayaa maanta sida aan aniga wax u arka markaa barnaamijkan wuxuu ku socdaa shacabka iyo madaxda intaba oo mararka qaar hadaa fiiriso isku si madaxdina sida ay u dhaqmayso hadaa aragta ay tahay qaabka ee shacabka ay u dhaqmayeen mararka qaar isku eg maxay ahaday fudfudeed deganaan la-aan kala dambeyn la-aan ayaga laftirkooda madaxda waa kala leeyihiin mas-uuliyadii hayaan waa la kala leeyahay maamulka maxay nidaamka ay u maraan habka ay baryahan wax u socdaan aan ahayn hab wanaagsan oo inta aragtay dowladaha kale iyo sidii wax u qabsadaan ama ay u shaqeystaan ama nidaamada ay iyaguba sameysteen oo dastuurka ay qorteen ah haddana ay qaabka u ahaa loo marin marka wax badan isaga keena dhex qasan anaga dadkeena marka dadkeena shacabkina ayagan meesha ku jaha wareereen dadkii maamulka hayeen laftirkooda ma fudud xaaladda ay sameynayaan wax fudud ma ahan waa wax maxay ahayd dhib keeni karo oo maxay dadka haddana burbur iyo dhibaatooyin horseedi kara marka xilka hadda baryahan la isku haayo iyo hebelaa laga qaaday hebelaa loo dhiibaa la leeyahay sida aniga markaa fikradeyda ah oo dadka madaxda ah ama mas-uuliyiinta ah ay sameeyeen hadda tusaale kale ra'iisul wasaaraha tuu sameeyey uu maxay ahayd xilka uu isaga soo booday uu ka qaaday uu haddana ka qaadista ka hor haddana soo gudbiyay maxay ahayd amarka haddana waqtigaaban soo gudbistay boobsiistay wixiisii oo dhanba uu ka dhigtay wax boobsiis ah oo aan loo fiirsan oo aniga ila tahay nidaamka dowladnimada inuusan saas ay waafaqsaneen ila tahay waayo qofka haddii wax laga qaadayo haddii iskiis looga qaadayo inuu shaqadii ka gaabiyay si nidaam ah looga qaadaa haddii in dambiyo lagu hayo ay tahay haddii laga qaado si iyadana nidaam ah looga qaadaa dambiyadiisa si tartiib ah loo galaa waqtiyaa loo sameystaa laakiin wixii oo dhan isku daba qabad isku darfa qabad aan la kala reebinay noqdeen marka wixii ani ahaan waxaan u arkay wax meeshii in colaad laga hurinayo ama maxay ahayd aan nidaam laga rabin oo laga hurinayo maxay ahayd in meesha isku dhac ka yimaado saas ani ahaantayda iiga iftiintay qofka marka xilka laga qaadayo hadduu xilka laga qaadayo uu haayana waa la miisaamaa xilka uu yahay xil marka iska fudud oo laga qaadi karo xil mas'uuliyad iyo maxay ahayd qofkan uu wax badan hayo oo u baahan deganaan iyo maxay ahayd in laga fiirsado oo qofkaas meesha la marin lahaa hadduu dambiile yahay iyo maxay ahayd haddii iskiis shaqa uu ka gaabiyay yahay labadaba laba jidoo loo maray kala leeyihiin marka hadda tusaalo hadda mas'uulkan xilka laga qaaday xilka uu ahay xil aad u culus oo ahay xil maxay ahayd
dowladii nidaamkeedii iyo sirteedii iyo wixeedii dhan uu hayo ahaa. Marka haddii si xanaaqa oo iska soo bood ah looga qaado, hadduu markaa dembi lahaa waxay ahayd qof oo markaa lagana qaado ishana lagu hayo wixii maxay ahayd lama macneeyo sidaasay ku habbooneeday. hadduu yahay qof maxay dembigaas uu galayna ku cadaadane waxay noqonaa xataa dowladda inay ka warheyso oo maxay ahayd meesha ay ku ilaaliso oo xaaladihiisa la socoto maadaama uu yahay qof maxay ahayd sirta dowladda iyo wixii oo dhan haye. nidaamkaas uu leeyahay qofka markaa xilka hadda uu hayo kala hayo mas'uulkan hadda lagu dhiganaay. hadduu dembiye lahaa tartiib loo baaro, waqti la siiyo, la soo baaro maxay ahayd haddii dembiyadu ku cadaadeen wixii waajibka ahaa oo sharciga dastuurka uu marinayo la mariyo. taas uu leeyahay haddii maxay ahayd in la sii daayo xataa ay taa waxay leedahay in ay dowladdu isha ku hayso oo meel walba uusan u noqon karin ruux iska maxay ahayd free ah oo sidii shacabka kale ah maadaama uu sir dowladda hayo oo wax badan hayo uusan sidii shacabka kale ahayn ama uusan sidii mas'uul kale oo xil iska caadi yahay aysan ahayn. qaab loola macaamili leeyihiin ummadaha dowladnimada fahmay kuna dhaqmo. laakiin annaga maanta oo kale waa la iska deynayaa wixii dowladda sir u ahayd oo kale wixii maxay ahayd waxa uu ahaayoo kale oo dhan banaanka waa la wadaagaya shacabka kale ama wadamadii kale wixii oo dhanba banaanka uu geenaa sida haddaba aan aragnay mas'uulka asaga ka horeeyo kale uu meel walba ka sheekeeyo oo wixiiba ka sheego oo ka sharaxo. marka hadda kaasoo kale hadda mas'uulkaas oo kalena ciidamo kontaroosho ciidamo maxay dowladda isha kuma hayso. marka annaga dowladnimadii maba fahansaninba Soomaali hadda aan nahay sida aniga ila tahay. marka waxay leeyihiin dadka maxay ahayd sirta dowladda hayo si gooni ah ee dadka maxay ahayd u ogaadaan oo u maamusaan oo maxay ahayd hadduu dhib galay oo maxay dembiye galana iyadoo maxay dembigiisana lagu ogaayo aan lagana warhayaa lala socdaa haddii maxay qaladaad lagu arkay oo waajib gudasho xumo ahna iyadana isha lagu hayaa. laakiin wixii asagana in dagaal iyo colaadin la iska tuso oo fudayd ah haddana la sii daayo oo maxay ma fahansaninba annaka oo dowladnimadii aan fahansaninba waa inta shacabka ah waa inta maxay ahayd xilalka kala hayso maxay madaxweynaha kala hadda mas'uuliyadda uu u dhiibay oo la leeyahay asaga isku ilaalinaya asaga iskuma ilaalinaya laakiin shaqsigan oo meesha dhan laga bixinayo sirta dowladana haay in uu maaragtay u diidan yahay inuu meeshaas iska soo istaago ay aniga ila tahay. sababtoo ah waxaa ogaan kartaa adduunyadan kale oo iyo wadamadan hore u maray qof sidaas oo kale u ahaa haddii laga xiro oo aragtay inta ay kusoo deynayaan oo maxay qarashaad ah oo wax walbo la dul dhigo ay kusoo deynayaan intaasna ay u yeelayaan sirti dowladda inuu hayo qofkaas. marka iyagana shacabkana waxay isu tuseen ninkan farmaajo wuxuu xil u siinayaa inuu asaga isku ilaalinayo asaga iskuma ilaalinayo Soomaali inuu ku ilaalinayo aniga ila tahay meeshaas aniga aan u macneystay maadaama qofba dhinac u macneysanayay. marka qof walba siduu wax u arko unba wax u cabirayaa wixii jirna ilaaha naga og. anaga waxaan iska nahay qiyaase waa iska qiyaaseynaa sideen la taan qiyaaseynaa laakiin aniga haddaan qiyaasay haddii mas'uulkan dembi kusoo jiro baaritaan iyo sharciya la marin doonaa sida haddaba aan meesha ka maqlaynin social media iyo warbaahinta dhan haddii maxay ahayd uu lahayn maba lahan hadduu lahaadana waa lagu qaadi doonaa laakiin inta kasoo ka ahbo waa qofkii in maxay ahayd la sii haayo mas'uuliyadii loo sii dhiiban loo sii dhiibo mar walba uu dowladdiisa iyo dadkiisa ku dhex jiro oo qof markaas sir bannaan geey kara ama meel ku gudbin karaba uusan ahayn. ani sidaas ila tahay aragtidayda qof walba siiyo marka wax u arkaa. marka Soomaali aniga sidaas ila tahay anagana Ilaahay naga dhigo dad dowladnimada fahmo haddaan noqon lahayn madaxda xilalka hayso iyo haddaan noqon lahayn shacabkaba waa isku aqliyaan nahay isku sii u shaqeynaa labada iyadoo sida naga tahay haddana qabiil iyo qabyaalada noogu sii jirto. marka Ilaahay waxaan ka baryaa inuu intaasba na fahansiiyo intii xunna naga reebo intii wanaaga ahna na fahansiiyo insha Allah. khayr badan aan idin rajeynaa dhammaanteen meel walba aan joognana insha Allah waa noo barnaamijka dambe haddii Ilaahay idmo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.